Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay khayrta ku xiran channelkayga Bashiir Aadan. Aad baan idinka raali gelinayaa maalmihi lasoo dhaafay waxba maanan soo dhigin. Maanta waxaan idin wadaa barnaamij cusub. Muuqaaladii hore badanaa inkastoo aan ugu soo hadlay sidii aad Alibaba wax uga adeegan lahayd. Maanta waxaan rabaa inaan aado maadaama Alibaba ay tahay China. Maanta inaan aadno suuqyada Amerika. Suuqyada weyn oo online-ka wax laga iibsado sida Amazon ama eBay ayaad rabtaa inaad wax ka soo iibsatid. Laakiin cilada jirta ayaa waxay tahay online-ka eBay aad wax ka iibsatid ma xumo, balse alaabtaada yaa kuu keenaya. Cilada jirta ayaa taase. Marka maanta waxaan ku hayaa barnaamij fudud oo aad Amerika wax uga gadan kartid Amazon iyo ama eBay. Kadibna maxay ahaydee alaabtaada si safe ah lagugu keenay xaruntaada. Marka barnaamijkaas aan idin hayo waxaa la dhahaa My US Address. Waa forwarding agency. Waxayna xafiis ku leedahay Mareykanka. Qof kasta ama meel kasta aad joogtidna waad isticmaali kartaa. Ciwaan ayaad ka furanaysaa. Markaad ciwaan ka furatid kadib ayaga waxay ku siinayaan ciwaan ayaga ay leeyihiin oo Mareykanka gudihiisa ah. Kadib adiga addresskaas ayaad meel kasta online ama Amazon ahaata ama eBay ahaata wax ka gadanaysid. Addresskaas ayaad ku qoranaysaa. Kadibna addresskaas ayaa alaabta lagugu geynayaa. Kadibna ayaga waxay ku leeyihiin alaab adiga kaa socotay ayaana soo gaartay. Kadibna waxaa lagu leeyahay ma waxaad rabtaa inaad baqaaradiina kugu keedino mise in aan hore kaaga soo dhiibno. Waad dalban kartaa in lagu keediyo haddii aadan markaas u haynin lacagihii shipping-ka oo maxay ahaydee waqtigaas aysan diyaar ku ahayn. Haddii ay diyaar kuu tahay waxaad dhihi kartaa isla markaaseyto ayaan u baahanahay in la ii soo dhiibo. Kadibna waxaad iska bixinaysaa lacagaha shipping-ka oo lagugu soo qaadi lahaay. Kuwaasna wax iska weyn maaha, waa iska raqiis. Waxaan laguu soo saarayaa kambaniyaal weyn oo maxay ahaydee alaabaha keena. Adigaana kala dooranaysid hadba say u kala qaalisan yihiin waaye. Marka ayagaa ku siinaya optionado. Waxaa jira option ay ku siinayaan sida Mafida Kase rabtaa lagu soo saaraa kambaniga mise waxaa rabtaa DHL. Marka adigaa kala dooranayso. Kadibna alaabtaada muddadii lagu qabtay ayaa lagugu keenayaa. Marka waxaan rabaa bal barnaamijkaas sad u furan lahayd inaan idin tuso. Haddii aad laptop haystid laptopkaada furo. Assalaamu calaykum. Waa kana waxaad qoraysaan My US Address waa ujeedaan. Waxaa ku soo baxaya myus.com shop US stores. Bartaan markii ay ku soo baxdo ayaad ku dhufanaysaa. Waad aragtaan waxaa waaye myus.com shop US stores and ship overseas. Dukaamanka Mareykanka ku yaala ama dukaamanka ku yaala UK ayaad ka soo adeeganaysaa. Wax canshuur lagama qaadayo, waa free. Tan kale waxaad alaabtaada lagugu keenaa adduunka dacaladiisa meel kasta aad ka joogtid. Suuqyada aad ka adeegan kartiin kulley dhinacaas waa ku aragtaan, eBay waa ku aragtaan, Adidas waa ku aragtaan. Waa fara badan yihiin suuqyada Mareykanka iyo Ingiriiska laga helo hataa Nike ku jirto. Adigoo gurigaaga joogo online ahaan qaab online ahaan ayaad alaabta ku soo gadanaysaa. Markaad maxay soo iibsatid ilaa kuma darnaade marka barnaamijkan wuxuu ka caawinayaa marka aad meelahaas ka adeeganaysid. Waxaa lagaaga baahan yahay ciwaan. Haddaa marka leedahay ciwaan Mareykanka oo kale address Mareykanka oo kale badanaa kambaniyadan free ay kugu geynayaan. Qoladan adiga bishii waxay kaa qaadanayaan lacag yar oo kale kaa qaadanayaan. Waxaan dhammayn $7 camal ay kaa qaadanayaan. Alaabtaadana marka addresskooda ayaa lagugu geynayaa. Ayaga ku email bay kuu soo diraan waxay ku leeyihiin alaab adiga kaa socotaana soo gaartay. Marka hore horta qaabkan ay ku shaqeeyaan waa sign up garaynaysaa, ciwaana ka furanaysaa. Kadib ciwaankaaga ciwaankii ayaga ku siiyeen addresska ayaad meelaha online-ka wax kaga adeeganaysaa. Addresskaas aad u isticmaalaysid. Kadibna alaabtii waxaa lagugu geynayaa addresskii ay qoladan ku siiyeen. Kadibna qoladan kula soo xiriirayaan waxay ku leeyihiin alaab adiga kaa socotay anagana soo gaartay. Alaabtaasaytuna kadib waxaa lagu leeyahay maxaad u baahantay consolidation. Consolidation waxaa la dhahaa
yacni alaabta ayaa lagu furayaa oo lagu xaqiijinaya in alaabtii saxdeeda aad dalbatay. Kadibna waxaa lagu leeyahay waxaad samaysan kartaa 30 beri ii keedi aad dhihi kartaa. Marka suuqadan oo idilna waad kaga soo adeegin kartaa oo hadda meeshan aad idinga muuqdo. Marka waxaa waaye barnaamij aad u fiican waaye, waan idin anfacayaa. Marka kaliya waxaa u baahan tahay inaad ciwaanka furatid. meeshan qaybta jaalaha ayaad isticmaali kartaa oo sign up ayaad dhihi kartaa, ama geeskaas kore oo sign up-ka ku dhufan kartaa. Marka hadda waxaan rabaa inaan idin tuso bal qaabkii aad sidaaseeto ku samaysan lahayd, aad ku samayn lahaydeen. markaad ciwaan aad ka samaysanaysid 3 qaab ayaa loo galaa: single package, mid la dhahaa, iyo mid la dhahaa premium, iyo mid la dhahaa business. saddexdanna way sii kala fiican yihiin. kolley haddii aad bilow tahay xoogo waxa ku fiican ani wax ku dhihi lahaa single-ka iska qaada. premium-kana waa iska fiican yahay. meeshaas lacagtaas aad ujeedaan ayaa bisha lagaa qaadaya. 7 beri oo waxaan lagu siinaa sidoo kale free ah. alaabta marka ayaga qoladooyinkan premium-ka wuxuu ku fiican yahay 30 beri. alaabta 30 beri oo kale marka alaabtii waa soo adeegatay soomaha, baqaarkii lagugu keediyaa rabtaa waaye lacagtii shipping markaasiito oo Mareykanka intii laga soo qaada gurigaada lagugu keenayay lacagtii ku bixaysay ma haysid, taxadarkaas ready kuma ahan. marka waxaad samaynaysaa 30 beri lacagtooda ayaad ayaad lacagtooda ma sii baxsan kartid. marka xaalada 30 beri halii keediyo raalli ahaada meesha ku celceliya malinaya, yacni 30 beri alaabta meesha haligu keediyo waa dhihi kartaa. sababtoo waxaa dhici karta inaad lacag markaas kaash aadan haynin, lacag ku diyaar aadan haynin. marka premium-ka saas ka caawinaya. single package-kana sinitary iska fiican yahay, laakiin 30 beri qof alaab ku keedinaya ma lahan. alaabta markay ku imaado waxa lagu leeyahay xaggee lagugu soo dhiibaa. marka waa inaad lacagtii shipping-ka ku ahayd aad markasta diyaar lahaataa lacagtii alaabta lagugu soo qaadi lahaa. marka 3 qaab ayaa loo furtaa. midna waa single, midna waa premium, midna waa business. marka business-kana waa everything waa complete, wax ka maqan ma lahan. consolidationka details alaabta lagu keedinayo waxaas oo idil iyo shipping discount aa jirto aan idin sheegin. ayaga qaybta business-ka shipping discount aa idin sameynaya 10%. marka hadda waxaan rabaa bal inaan aan furo ciwaan idinkoo ila arkaysaan. waxaan isticmaalayaa qaybtan single package-ka ayaan isticmaalayaa. waa no membership fee, yacni ku biiritaanka wax lacag lagama rabo, free waaye. midkan kalena waa intaas aad aragtaan, membership-ka lacag intaas lagaa rabaa. 7 beri ugu horeysana waa free. midka kalena waa intaas. marka hadda midkaan aan sign up dhahayaa. marka waxaa rabaa haddii midkaa doonto adigu waa dooran kartaa. midka adiga aad kaliya muhiimadda waa fahanka. waxaan haddii mar aad Englishka taqaanid website-ka magaciisana idin siiyey, sign up-ka waad buuxsin kartaan. kaliya waxaad sameynaysaa magacaaga iyo password iyo email ayaad gashanaysaa. billing information qayb la dhaha jirto. billing-kana qaybtaas waxaa waaye waxay kaa rabaan hodhow markaad gelinaysid card number-kaaga oo meesha waxaa la rabaa bishii hodhow markii ay dhammaato lacagta meesha laga goosan lahaa. sababtee dadkan bilaash address kuma siinayaan oo baqaarkooda bilaash alla lacagtada uguma keedinayaan. marka waana intaaseeto. kow magacaaga waxaad buuxsanaysaa password-ka. 2 billing kaar bangigaada information-kiisa ayaad gelinaysaa. insha allahu tacaala haddii ay jirto meelaadan fahmin ama meeshaan qaabka loo buuxsado haddaadan fahmin waa ila soo xiriiri kartaan insha allah. second baadaan kasoo sameynaya ama US kaliya haddii aan arko in dadka ay diyaar u yihiin, yacni in maqaal kale aan kasoo diyaariyo. falcelintiin ayaan jawaab ka sugaya insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin.